bannaanbaxan oo ahaa mid ay soo qaban qaabisay dowladda hoose ee degmada Gaalkacyo ee dowlad goboleedka Galmudug isla markaana lagu taageerayay guulaha ballaaran ee ciidamada dowladda Soomaaliya oo ay kaabayaan kuwa dowlad goboleedyada dadka deegaanku ay ka gaareen dagaalada lagula jiro kooxaha khawaarijta al-shabaab ee ka soconaya Galmudug iyo guud ahaan dalka Soomaaliya ayaa maanta lagu qabtay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug dibadbaxan oo ay ka qayb galeen bulshada reer Gaalkacyo mas'uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedyada Puntland iyo Galmudug saraakiisha hay'adaha amniga labada dowlad goboleed ayaa waxa ugu horeyn ka hadlay qaar kamid ah waxgaradka iyo dhalinyarada kuwaasi oo bogaadiyay howlgalka iyo heerka uu marayo xilligan iyagoo lagu baaqay shacabku inay door weyn ka qaataan sidii loo sii afjari lahaa kooxaha nabadiidka khawaarijta al-shabaab ee weli dhuumalaysiga ku ah qaar ka mid ah deegaanada dalka. Khawaarijti waa jabeen inta harta la jabiyaan leenahay war ma isku raacsanahay khawaarijta inaan jabino war ma isku raacsanahay inaan guushooda raadino Soomaaliya soo banaan baxdo dhamaanteed sida reer Mudug ay isku tashadaan leenahay qof walba oo dhibka kaysatid aduu kugu dambaynaya qof walba gurigaaga ka suuri dareenkooda ay la garab taagan yihiin dowladda federaalka Soomaaliya midda Galmudug ciidamada qalabka sida guulaha sharafta leh ee ay ka soo hooyeen dagaalka lagu aftarayo khawaarijta ummadda Soomaaliyeed dhibaatay waxaan halkaan ugu garab taaganahay inaan bogaadino dhiirigelino hambalyeeyno guulaha isdaba joogga ee saacadda ka dambaysa soo baxaya oo markasta soo dhacaya oo la leeyahay meel heblo waa la qabtay degmo heblo waa la qabtay oo ugu dambeysay degmada qadiimiga Ceelbuur oo u ahayd meesha ay ilmaha dhigteen waxaan leenahay annagoo shacabka Gaalkacyo madax iyo shacab isku duuban mudane xasan sheekh maxamuud birmade waxa tahay badbaadiyay qaranka Soomaaliyeed waxa tahay hogaamiyay dhabta ahaa waxaan rajaynayaa markii wadanka laga qabto cadawga dhammaan shacabka ummadda Soomaaliyeed markii la yiraahdo qof iyo cod inaad halkaas aad heli doontid waxaan ku leenahay aad iyo aad ugu mahadsan tahay walaalayaal waxaad ogtihiin nimankan al-shabaabka ee islaan la dirirka diin la dirirka ummadda markay gumaysanayeen annagu reer Mudug hadaan nahay dadkii diiday baan nahay gumaysigooda dadkii waxaan nahay diintoodana ka difaacay gabdhahoodana ka difaacay naftoodana ka difaacay dalka annagu aan deganahana ka difaacay baan nahay waxa weeye bari waa la sheekaysan doonaa ummaduhuna miis bay iskugu imaan doonaan annagu door waxaan leenahay dadkii xarig jaray baan nahay in la dili karo oo lala diriri karo oo lala hadli karo dadkii xarig jaray baan nahay wadaan reer Mudug nahay waxaanu mahadcelinayaa walaalaha reer Puntland oo hadda halgankii la soo maray nagala qayb galay maantana u taagan saan dabaadiga ka haray aan iskaga qaadi lahayn maantana u taagan oo mahadcelinaya waxaan leeyahay laba baaq baan jeedinayaa baaq waxa weeye dowladda federaalka Soomaaliya baan u jeedinayaa baaqna waxaan rabaa inaan u jeediyo al-shabaab baaq waxaan u jeedinayaa dowladda federaalka baaqaasi wuxuu yahay dowladda federaalka diyaar baan nahay wixii hore aan qabanana waa la sheegay hadeertaana diyaar baan nahay waa arkaysaan wax noo hari mahayaan maca gabdhuhu waa tagayaan haddii alla idmo dowladda federaalka saasaan leenahay shabaab waxaan leeyahay shabaabo waqtigiinni waa dhammaaday saqiir iyo kabiir bannaanka loo soo baxay qof kastaana wuxuu diyaar u yahay dhagax iyo kab iyo haddii la kuran qori wax allaala wixii la haysto in la ku dilo waxaan ina leeyahay isa soo dhiibaan leeyahay taliyaha qaybta booliiska gobolka Mudug ee dowlad goboleedka Puntland gaashaanle sare Maxamuud Cabdixakiin ayaa isna shacabka ugu baaqay la shaqaynta laamaha amniga iyo odayaasha iyo dhammaan dadweynaha u soo baxay bannaanbaxa taageerida ay ku taageerayaan ciribtirka shabaab waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu annagu ciidan amni ahaan shabaab waxaan naga go'an inaan la diriro dhiigeygana ku bixinno gudaha iyo bannaankaba waxaan rabaa inaad taageertaan oo informationkooda bixisaan kuwa gudaha ku jira oo guryaha iyo aagagooda degan iyo kuwa dibadda jooga oo xoolihiina dhacayaba haddii aad taageertaan meesha joogaan baa ugu tagaynaa waana soo afjarana
gudoomiyihii hore ee gobolka Mudug Cabdiraxmaan Cali Diiriye Isxal iyo duqa degmada Gaalkacyo Cabdiraxmaan Sheekh Xasan Jimcaale ayaa iyaguna ka hadlay guulaha ciidamada dawladda iyo kuwa dowlad goboleedku ay ka gaareen howlgalka sifaynta khawaarijta al-shabaab iyagoo shacabka ugu baaqay in ay sii xoojiyaan garab istaaga ciidamada si gabi ahaanba looga taqaluso kooxaha khawaarijta al-shabaab ee weli gabaadka ka dhiganaya deegaano yar oo fara ku tirisa laga baqi jiray oo ay dadka baadda ka qaadi jireen halkan baa lagu qabtaan filayaa maayirku qabtay anuu markaas wasiil baan joogay kumaan kun oo qof baa soo baxday maanta ay cilib tareen oo ay jiis yihiin weli waa gaab baan ugu jira runtii waxaan rabaa marka hal su'aal baan rabaa inaan reer Mudug maanta ka weydiiyo horta ma nabad baan rabnaa iyo nolol mase waxaan rabnaa dhib iyo rafaad nabad haddaan rabnaa laba shay baan raadinaa marka kow khawaarijta la dagaalno labo midka khawaarijta u shaqeynaya ee raba magaalada Gaalkacyo in dib ka dhaco ee baadiyaha wax ku dilaya inaan iska qabanno inta in ka badan baa martilayn ku ahaa maantay waxaan doorkiina ka rabnaa halka dagaalku ka socdo ee xoreyntu ka socoto iyo magaaladan gudaheeda iyo daafaheedaba isku siina gacanta maskaxda muruqa iyo maalka weena ugu bixisaan baa martilayn kugu dhah Soomaaliya guul khawaarijna waa jabeen Allah jabsho waxaan rabaa inaan reer Mudug u sheego annaga mas'uuliyadda marka imaanayna waxaan nimi reer Mudug aan lagu aqoonay baqaan oo baqay baan nimi wali astaamii qayb kamid ah uga jeeda reer Mudug war khawaarij haday jabtana ma dad baa wali media ka dhuumanaya gadaal istaagaya kuwa marka beeraha iyo meelaha qorxoon la tagay sawirada u soo hormaro dadka hortiisa soo istaago sawirada dadka ku garbiya marka shabaabka laga hadlayna la weynayo waxa leeyahay adeer yaal sawirku ma kala qorxoon kana imaada kaas xoog u heshaan kana u hela mararka kale meel la istaagay meel la iska sawiro leeyahay maantana waa hortaada ordaya halkaana dad yar baa imaanaya marka waa nasiib darro khawaarijiyo jabtay oo laga adkaaday oo dalkii laga xoreeyay in maanta wali ay jiraan dad sawirada gadaal uga durkaya maantana dhabarka gadaal laga fiirinayo waa nasiib darro inkastoo isu soo baxan uu saahayntii ugu horeeyay lagu qabto fagaaraha maanta in lagu suganahay hayaa haddana waxa isu soo baxan maanta lagu taageerayo guulaha ciidamada dawladda Soomaaliya oo kaashanaya kuwa dowlad goboleedka dadka deegaanka ay ku soo beegmayaan xilli ciidanka dawladda Soomaaliya ay howlgallo lagu xoreynayo ciribtirka khawaarijta al-shabaab guulo ballaaran kaga gaareen kuwa saamaxay in ciidamada dawladdu ay gacanta ku dhigaan deegaano ay hore kooxdaasi gabaad uga dhigan jireen عبد الرزاق محمد أحمد والباهنة قرن كصوماليا قال كعب